السلام عليكم رمضان كريم muuqaalka maanta wuxuu ku saabsan yahay qisada Cat Stephen iyo sidoo ku islaamay Cat Stephen oo hadda loo yaqaan Yusuf Islam wuxuu dhashay July 1947 waxa iska dhalay aabi Greek ah iyo hooyo Swedish ah wuxuu ku koray xaafadda West End ee magaalada London kadibna wuxuu noqday hobal ama fanaan caan ah oo si aad ah looga qadariyo cariga Ingiriiska inkastoo uu aabihii ahaa oday Greek ah oo haystay diinta Kristaanka gaar ahaan madhabka Orthodox-ka laakiin Cat Stephen wuxuu waxbarashadiisa ka bilaabay iskuul ama madrasad kale oo haysatay madhabka Catholic-ka Stephen wuxuu ku koray nolol fiican iyo jawi fanaan wuxuu aad u xiisan jiray fanka iyo heesaha waxaanu noqday hobal la jecel yahay waxa uu soo saaray 8 album oo dahabi ah oo isku xiga heesihiisuna waxay caan ka noqdeen Ingiriiska iyo Mareykanka qoyskiisa oo dhamina waxay haysteen diinta Kristaanka Cat Stephen markii uu islaamay kadib isagoo ka warramay diintii uu ku soo barbaaray waxa uu yiri diinta Kristaanku waxay ahayd diinta kali ah ee aan bartay sida aynu ognahay qofku waxa uu dhashay isagoo toosan balse aabihii iyo hooyadii ayaa Kristaan ka dhig ama Yahuudi sida daraaddeed diinta Kristaanku waxay diinta kali ah ee aabahay iyo hooyadii igu barbaariyeen waxa la ii baray inuu Ilaahay jiro laakiin aan si toos ah loola xiriiri karin in aanay suurtagal ahayn in Alle lala xiriiro haddii aan loo sii marin Ciise waana albaabka kali ah ee aynu Ilaahay kula xiriiri karno inkastoo aan qayb ahaan ku qanacsanaa fikradan haddana si dhameystiran caqligaygu uguma bogin waxaan u fiirfiirsan jiray taalooyinka ama sanamyada lagu matalay Ciise kolkaas ayaan u arki jiray dhagaxaan aan nolosha waxba ka ogeyn fikradda saddexleed ah ee aan aaminsanayn ayaan ku dawaqi jiray oo waxaan la yaab jiray sida ay macquulka u noqon karto laakiin kumaan murmi jirin doodna kamaan keeni jirin anoo qadarinaya ama xaq dhowraya aabahay diinta uu haystay balse markii dambe si tartiib ah ayaan uga fogaanayay diinta kadib waxaan isaga leexday dhanka fanka heesaha iyo muusikada noloshan cusub waxay muqoorisay badweynta quruxda waxaanay noqotay waxa kaliya ee imari jiray hantida maalka iyo lacagtuna waxay noqdeen yoolkayga kali ah anoo isla markaasina ku dayanaya in kamid aha abtiyaashii oo maalqabeenha maalkana aad u jeclaa intaa kadib waxaan doortay jidkaygii waxaan go'aansaday in maalku noqdo hadafkayga kali ah noloshaydanina noqoto tii aan ku gaari lahaa meel sare markii aan marxaladan mariyay waxaan ku dayan jiray fanaaniintii waaweynaa ee dunida kuna caan baxay qoobka ciyaarka waxaan dhex muqortay noloshan adduunyo aan u adeegsanaya awoodeeda oo dhan waxaan soo saaray oo soo bandhigay heeso badan balse markii aan lacagaystay waxa iga dhex bixi jiray dhawaaq bini'aadanimo oo igu dhiirigeliyay inaan dadka danyarta ah caawiyo waxaan markasta ku fikiri jiray kororsi iyo saan wax u badsan lahaa mashruucan aan galay ee fanka waxaan ka gaadhay guul aad u ballaaran 19 sano ee igu horreeyayba warbaahinta ayaa sawirkayga iyo warkaygaba qaadaa dhigi jirtay aad ayay ii buunbuunin jireen inta dabadeed waxaan sii dhex galay badweynta khamriga iyo maandooriyaasha baadhidii xaqiiqada kadib markii uu Cat Stephen horumar ballaaran ka gaadhay noloshii maadiga ahayd guulo badan oo uu ka soo hooyay fankii iyo heesihii ayuu xanuunsaday waxaana ku dhacay xanuunka loo yaqaan qaaxada waxa la dhigay isbitaalka halkaas oo muddo dhex yaal intii uu dhakhtarka jiifay ayuu ka fikiray xaaladda uu haatan ku sugan yahay iyo noloshii uu soo maray waxaanu isweydiin jiray su'aalahan ma waxaan ahay jidh kali ah ma waxa uu xiliga saaran yahay inaan jidhkan oo kaliya daryeelo maxaan sariirtan u dul jiifaa isagoo ka hadlay xaaladana wuxuu yiri waxaan isweydiin jiray su'aalahan iyo kuwa kale xanuunkan iyo musiibadan igu dhacdayna waxay noqotay nasteex aan kaga fikiro noloshayda iyo si u socdo oo dhan waaga waxay dadku aad u galayeen caqiidooyinka bariga Asia waxaan bilaabay inaan wax ka akhriyo caqiidooyinkaas waa markii ugu horeysay ee aan ka fikiro geerida waxaan ogaaday in nafta iyo ruuxdu u gudbayaan nolol kale taasoo aan ku koobnayn noloshan adduunyo waxaan bilaabay inaan kasbado caadooyin iyo dhaqamo ruuxaani ah sida fikiridda iyo u fiirsiga waxaana rajo weyn ka qabay inaan ku suganahay bilowgii jidka xanuunka waxaan daawan jiray ubaxa si naftaydu ugu degto uguna nasato balse waxa ugu muhiimsan ee aan xilliga ka faa'iiday waxa uu ahaa inaan ogaaday inaan ahayn jidh kali ah ee aan leeyahay ruux iyaduna u baahan in la daryeelo heesahaygii aad bay u shaaceen caanimadeydii iyo fankaygina aad bay u tisqaadeen dhanka kalena waxa gudahayga ka jiray dareen xaqiiqo raadis ah iyo anoo noloshayda iyo aayahayga diineed ku mashquulsanaa waaga waxaan ku qancay diinta buudiyiinta oo aan u arkay inay tahay diin fiican oo heer sare ah balse waxa ii cuntami weyday inaan adduunyada ka dhex baxo oo aan cibaado kali ah u go'o markastana aan dhex fadhiyo macbadka iyo marxaabka boodiyada nafteedana aan ka xirxidho caalamka sababtoo ah waxaan ahaa nin adduun jecel oo raba inuu shaqaystana caqiido sax ah helo waxaan isku dayay inaan baadidii iga maqnayd oo ahayd caqiido sax ah aan ka raadiyo cilmi falaga iyo caqiidooyinka kale xilligaas war kamaan hayn diinta islaamka waxaan diinta islaamka ku ogaaday hab mucjiso ah walaalkii ayaa u safray Qudus waxa uu soo arkay Masjid al-Aqsa iyo dhaqdhaqaaqa ruuxaaniga ah ee ka socda waxa uu la yaabay masaajidkan oo ahaa goob mawjado dad ah u soo cibaado tagaan had iyo habeenna aan laga faaruqin taasina waxa uu ahaa mid uu kaga duwanaa macbadadii Kristaanka iyo Yahuudda kuwaasoo inta badan iska faaruq ahaa ama 2-3 wadaad ay dhex fadhiyaan walaalkii markii uu ka soo noqday Qudus wuxuu hadiyad ahaan u keenay kitaab Quraan ah inkastaanu islaamin haddana waxa cajabiyay kitaabkan waxaanu dareemay inaan ka heli doono
markii aan kitaabka quraanka ahaa helay waxaan ka dhaxlay hanuun wuxuu iga warramay xaqiiqada jiritaanka hadafka nolosha ujeedada ka dambaysa abuurideeda iyo halkii aan ka iimi markii aan hubsaday ee yaqiinsaday in diintani tahay mid dhab ah xaqiiqadeeduna ka duwan tahay fikradaha reer galbeedka iyo inay tahay diin wax qabad ah ee aanay ahayn khuraafaad qof kasta aamino markuu gaboobo sida diimaha kale waxaan aad ugu mashquulsanaa xiriirka ka dhaxeeya ruuxda iyo jidhka waxaanan ogaaday inaanay kala maarmi karin waxa kale oo aan ogaaday inay nagu waajib tahay inaynu u hoggaansanno rabitaanka ilaahay inaad noqoto qof diin leh oo cibaadaysanaya adoo noloshada adduunyada aan ka faquuqin waxaan fahmay in wax kasta yahay abuurkii ilaahay iyo farsamadiisii inaanay ilaahay hurdo iyo lolo toona qabanin isaga xumaan ka nashani waxaan ka tanaasulay kibirkii iyo isla weynidii igu jirtay sababtoo ah waxaan ogaaday ciddii ii abuurtay waxaan sidoo kale ogaaday sababta dhabta ah ee ka dambaysa jiritaankayga kitaabkii quraanka ahaa ayaan aad u akhriyay xataa waxaan ogaaday 5 salaadood sakada soonka xajka iyo wixii la mid ah sidaa daraadeed gudaha waxaan ka ahaa muslim maadaama oo aan ilaahay jiritaankiisa iyo kalimadiisa ogolaaday balse markaasi cidna uma sheegin inay diintani qancisay oo aan aad uga helay islaamidii Cat Stephen wuxuu yidhi intaa kadib waxaan isku diyaariyay inaan sidii walaalkay oo kale Qudus u safro anoo masaajidka agtiisa fadhiya ayuu nin ii yimi waxaan ii weydiiyay maxaad ahayd waxaan ugu hal celiyay waxaan ahay Stephens isagoo la yaaban ninkan cadaanka ah ee kalidii masaajidka hor fadhiya ayuu mar labaad ii weydiiyay oo maxaad doonaysaa markan waxaan ugu jawaabay waxaan ahay muslim wax yar kadib waxa la galay salaad safafkii muslimiinta ayaan galay anigoo isku dayay inaan sameeyo fal kasta oo la sameeyo kuna daynayo dhaqdhaqaaqa dadka waayo salaada markaas waxba kama aqoonin kadib markii aan dhamaystay safarkii Qudus waxaan ku soo laabtay magaalada London waxaan kula kulmay gabadh muslimad ah oo la yiraahdo Nafisa waxaan u sheegay inay leeyahay jacayl iga haysato diinta islaamka isla markaasina aan danaynayo inaan si toos ah u soo galo Nafisa waxay tustay masaajid la yiraahdo New Richnet masaajidkii ayaan nimid maalin jimcaha ay ahayd kadib markii salaada laga baxay ayaan imaamka u tagay waxaan u sheegay inaan si dhab ah diinta islaamka ugu soo biiray imaamkii wuu soo dhaweeyay halkaas ayaana laygu laqimay shahaada oo aan si qumaati ah ugu soo islaamay xilligan islaamiga waa sanad iyo badh kadib markii kitaabka quraanka ah aan akhriskiisa iyo wax ka fahankiisa bilaabay waana 1977 halkaas ayaan ku soo gabagabeeyay kibirkii iyo isla weynidii halkaas ayaan kaga fakaday shaydaankii ii watay waxaan nolosheeda u jiheeyay dhinac kali ah oo ah dhanka ilaahay shayga kaliya ee igu dhiirigeliyay sababtana oo ahaa inaan islaamo waa quraanka oo aan akhriyay markastoo aan akhriyana waxaan fahmi jiray inaanu ahayn hadal ama qoraal dad sameeyeen quraanku wuxuu ka warramay xaqiiqooyin dhab ah iyo waxyaabo macquul ah oo maanka dadka si quman ula jaan qaadaya diimii kale aan soo tijaabiyay oo dhan waxa ilaahay loo sii mari jiray cid kale hase ahaatee quraanku wuxuu si toos ah oo aan cid idin dhaxayn kugu xidhay allaha koonkan abuuray dhammaan acmaasha ilaahay oo kaliya ayaan wax kaga rabaa qisadaydan aan ku soo islaamay waxaan rabaa inay waano iyo wax ku qaadasho u noqoto dadka ilaahay hana waafajiyo raacidda jidka rasuulka naxariis iyo nabadgelyo korkiisa ahaatee sidaas ay noloshiina adduunyo tan aakhiraba ku badbaadiyaan muuqaalka maanta intaas uu ku eegyahay haddii uu ku cajabiyay like saar asxaabtadana la sii wadaag wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh